waxay ka ganacsadaan gabdhaha yaryarka iyagoo afduubta misna kufsada. waana laba nin oo saaxiib ku ah qorshahaas. halkanna ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta saaxiibayaal. gaarigoodii ayay la soo baxeen waxayna doonayaan inay magaalada aadaan. gaarigan guduudka ayay soo qaateen waxayna soo fuleen wadada. labada ninna waxaa lagu kala magacaabaa Timo iyo sidoo kale saaxiibkii Biir. waana laba nin oo saaxiib ah. wadada dhinaceeda ayay ku arkayaan gabadha yarta waxaan lagu magacaabaa Biya waana 13 sano jir. isla markiiba Timo waxa uu soo dabagalay gabadhii. gabadhana waxay wadataa baaskiil. ilaa markii dambe ay gadaal soo fiirisay waxayna aragtay gaarigan daba jooga. waa istaagtay. isla markiiba Timo ayaa gaariga kasoo degay waxaana doonaya inuu la hadlo. waa uu soo dhawaanaya ilaa markii dambe ay ka carartay. waa uu dabagalayaa. ugu dambayna saaxiibayaal waa uu qabtay waxa uuna kula dhacay dhulka. saaxiibkiina waa u jeedaa waxa uu samaynayo. Timo waxa uu kufsaday gabadhii halka saaxiibkii uu soo qabanaya earphone-kii dhagaha ugu jiray. aad ayuuna wax xun yahay waxa uu samaynaya saaxiibkii. ugu dambayn Timo waxa uu kasoo baxay cawska kadibna waxa uu dilay gabadhii yarta ahayd. aad ayuu isugu naxay saaxiibkii kadibna waxa uu soo qaaday meydka gabadhii uu dilay laakiin saaxiibkii waa uu ka cararayaa. waa uuna shoogsan yahay. gaariga xaggiisa dambe ayuu gelinayaa. baaskiilkiina waa uu tuuray. ugu dambayn gaariga ayuu soo kaxaynaya waxayna dib ugu soo laabteen wadadoodii. dib ayuu gurigiisii ugu soo laabtay Timo isagoo gaarigiisii ka dhaqaaya dhiiga. kadibna waxa uu arkayaa saaxiibkii oo ka dhaqaaqay. waa uuna ka xanaaqsan yahay ilaa uu markii dambe baskan soo koray laakiin waa uu soo dabagelayaa. waa uu soo cararayaa si uu baska u istaajiyo laakiin waa uu ka tegay ugu dambayn. saaxiibkiina waxuu isaga guuray magaaladii oo dhan maadaama uu saaxiibkii ku hor kufsaday gabar kiis adagna ay ku jiraan. 23 sano kadib waxaan arkaynaa saaxiibayaal islaantana halkan ordaysa waxayna dhashay gabadhii 23 sano ka hor la dilay. waxay imaanaysaa meeshii gabadheedu ku aasnayd. qabriga ayay dhigaysaa fiyoorahan. waana gabadhii yareyd ee baaskiilka wadatay ee la dilay. halkan waxaan ku arkaynaa odaygan iyo sidoo kale xaaskiisa oo cananaya gabadhiisa waxaana lagu magacaabaa Senika. kadib markii ay iskoolkii tegi weyday aabaheed ayaa cananaya laakiin isla markiiba way kasoo baxaysaa guriga iyadoo baaskiilkeedii wadataa. waa ay soo dhaqaaqaysaa waxayna imaanaysaa magaalada ilaa markii dambe ay saaxiibkeedu wacday si uu ugu yimaado. halkan ayay timaaday waxayna kula ballantay saaxiibkeed. isla markiiba hooyadeed ayay wacaysaa waxayna u sheegaysaa inaysan caawa guriga imaanayn. aabaheedna aad ayuu uga walwalsan yahay gabadhiisa. halkan ayay iska fadhidaa cidlada ah. gaarigan ayaa daba jooga mana aragta gabadhani. hooyadeed iyo aabaheedna waxay ku seexdeen habeen murugo ah. ugu dambayn waa iska soo dhaqaaqday markii saaxiibkeedu imaan waayey laakiin gaarigan ayaa daba jooga. wadada ayay saaran tahay iyadoo baaskiilkeedii wadataa. ugu dambayn gadaal ayay usoo fiirinaysaa gaarigii. leyrkii gaariga ayaa hayaa. ugu dambayn gabadhii waa ay qabteen. waa ayna kufsadeen waxa ayna baaskiilkeedii ku tuureen meeshii gabadhii hore lagu dilay. iyadiina waa ay dhimatay. 23 sano kadib waxaa arkaynaa saaxiib Timo oo halkan jooga waxa uuna samaystay reer iyo family. halkan ayuu reerkiisa la degan yahay. subaxii markii waagu baryay boolisku waxa uu baaray goobtii ay ka dhacday falku kadibna waxay arkeen baaskiilkii goobta yaalay. Timo waxa uu iskala cayaarayaa reerkiisa iyo familkiisa waxa uuna ku jiraa farxad ilaa markii dambe uu TV-ga ka arkay gabadhii uu dilay 23 sano ka hor kiiskeedii oo dib loo soo cusboonaysiiyey. aad ayuu isugu naxsan yahay. uu aamini laayahay waxa dhacay ilaa markii dambe saaxiibayaal uu isaga soo dhaqaaqay reerkiisii waxa uuna la yaaban yahay qisadan qaabkii ay kusoo laabatay. booliskii waxa uu tegay meeshii biyaha kadibna halkan ayuu ka baarayaa gabadha meydkeedii laakiin ugu dambayn waa ay waayeen. ninkan waxaa lagu magacaabaa David waana dembi baare. David waxa uu imaanayaa xaruntii kaydka dembiyada kadibna waxa uu soo saarayaa buuggan waana gabadhii 23 sano ka hor la dilay. baaskiilkeedii iyo sidoo kale gaarigii guduudnaa ee dilay. kiiskii hore ayuu dib u furayaa maadaama labada kiis ay yihiin laba kiis oo isku eg. kadibna waxay imaanayaan gurigii ay gabadhu degneed iyagoo baaritaan ku samaynaya. aabihii iyo hooyadii aad ayuu murugaysan yihiin halkan ayay joogaan. Davidna waxa uu baarayaa inuu wuxuun cadayna ka helo guriga. Timo stress ayaa ku dhacay waa uuna ka seexan layaa kiiskan. waxa uuna la yaaban yahay sababta kiiskan dib ugu soo cusboonaysiisay. waxa uuna ka baqayaa in la qabto. isla markiiba telefoon ayuu diray waxa uuna fasax ka qaatay shaqadiisii ilaa markii dambe xaaskiisii u yimid. shaqadii ayaa degdeg lagaga soo wacay waa idiin soo laaban doonaa 2 habeen kadib waanuuna soo macasalaameynaya xaaskiisii iyo reerkiisii. ninkan jaakada wata saaxiibayaal ayaa halkan imaanaya kadibna waxau soo wacaya odaygii dhalay Senika. isla markiiba telefoonka ayuu ku tuurayaa meeshanka inta cidlada ah. David ayaa imaanaya waxauna baarayaa dhacdadii maadaama dilaagii uu halkan kasoo wacay gabadha aabaheed laakiin wax raada waa ay ka weynayaan. kiiskiina waa uu ku adkaaday David. ugu dambayn David waxa uu codsaday 23 sano ka hor kiiskii dhacay dhammaan dadkii watay baabuurta guduudnaa in loo soo tiro koobo waagaas si kiiskan xal loogu helo maadaama gaari guduudan lagu dhibaateeyay gabdho fara badan. Timo waa uu soo dhaqaaqay waxauna 23 sano kadib la kulmayaa saaxiibkii Biir. waxauna u sheegayaa in dhacdadii dib loo soo cusboonaysiiyey laakiin markiiba waxa uu ku leeyahay kiiskaas aniga ima quseeyo. wax dhibaato aan iguma haya maadaama aan anigu dambiga gelin. aad ayuu uga xanaaqaya hadalka saaxiibkii waa uuna isaga soo tegayaa. dib ayuu ugu soo laabtay meeshii uu degnaa waxauna kiristay hotel maadaama xaaladiisu ay aad u qasan tahay cabsi badanna uu dareemayo. waa uu iska ooyayaa waxa uuna ka quustay noloshii
noloshii oo dhan waxa uuna aaminsan yahay in maalin uu la qaban doono. Waxa uu galayaa xasuus kiiskii uu geystay 23 sano ka hor isaga iyo saaxiibkii. Ugu dambeyn go'aan ayuu qaatay, gaarigiisa ayuu soo qaatay waxa uuna doonaya inuu booliska runta u sheego. Markiiba waxa uu imaanayaa xaruntii booliska, gaariga kasoo degay ayuu isleeyahay laakiin markii dambe waa uu isbedelay, waa uuna isaga tegay xaruntii. Gurigan ayuu soo qarqaraacay waxaana degnaa gabadhii uu 23 sano ka hor dilay. Hooyadeeda ayaa ka furaysa kadibna waxa uu ku leeyahay guri kale ayaan raadinayay. Waa ay soo dhaweynaysaa, gudaha ayuu soo galaya ilaa uu sawirkeedii arkay. Kadibna waxa uu ku leeyahay 23 sano ka hor ma gabar ayaa weyday. Waa uu sheegaysaa waxay ku leedahay gabadheedii yareed ayaa 23 sano ka hor la dilay. Waa uu istaagaya waxa uuna ku leeyahay aad ayaa uga xumahay. Waa uu khalkhalsan yahay waxaanu samaynayo dhanna isma oga. Waa uu kasoo tegaya waxaanu soo qaadanaya gaarigiisii laakiin xagga sare ayay ka arkaysaa isagoo gaarigiisii ku dhex ooyaya. Isla markiiba waxay ka qaaday kaarkiisii aqoonsiga, waa ayna fiirinaysaa ninkan. Kiiba ninkeeda ayaa u imaanaya kadibna waxa uu sheegaysaa ninkii gabadheeda dilay inuu gurigeeda ugu yimi, iyadoo u sheegaysa inuu iska ooyay markuu ka tegay. Markiiba waxay wacayaan David waxayna u sheegayaan arrintii. David telefoonka ayuu ka qabanaya waxa uuna dib ugu soo laabanaya gurigii isagoo ordaya. Halka Timo uu gaarigiisa soo qaatay waxa uuna yimi meeshan biyaha ah. Gabadhan guriga ayay soo qaraacaysaa waana CID. waxay wareysanaysaa Biir, waxay ku leedahay ma soo geli karaa guriga laakiin waxa uu ku leeyahay haa. Waxay u sheegaysaa in 23 sano ka hor uu lahaa gaari guduudan laakiin waxa uu ku leeyahay gaarigaas mar hore ayaan gaday, haddana ma wato. Demi Bari waxa uu imaanayaa guriga Timo kadibna xaaskiisa ayuu wareysanayaa. waxay u sheegaysaa inuu ka maqan yahay guriga 3 berina uu hotel degan yahay, laakiin waxay u sheegaysaa inaysan hotelkaas ay garanayn meesha uu ku yaalo. isla markiiba gurigii ayay baarayaan ilaa markii dambe ninkani uu baaray kombiyuutarkii Timo kadibna waxa uu ku leeyahay kaalaya waxa uuna tusayaa cajaladihii uu ku save garaystay kombiyuutarkiisa. isla markiiba waxaa la ogaadaa caddayntii rasmiga ahayd, waxaana kombiyuutarkiisa laga helay gabdho fara badan oo dhibaato u geystay Timo, waxaana ku jirta gabadhii 23 sano la weysanaa. way iska ooyeysaa waxayna aamin leedahay ninkeedu inuu yahay Mandar. halkan ayuu joogaa wax kastana telefoonka ayuu kala socdaa ilaa markii dambe saaxiibayaal uu go'aan qaatay. gaarigii ayuu kula dhacayaa biyaha waxa uuna doonayaa inuu isdilo. ugu dambeyn Timo waa uu isdilay waxa uuna ku dhex jiraa biyaha dhexdooda ilaa markii dambe saaxiibayaal ay naftu ka baxday. booliskii ayaa goobta imaanaya waxayna ku faraxsan yihiin inay dambiilihii heleen. halkan ayaa gaarigii laga soo saaraya. Davidna aad ayuu u faraxsan yahay. meydkii Timo iyo gaarigiisa ayaa laga soo saarayaa biyaha. faamilkiisii iyo xaaskiisii waa ay daawanayaan waxa aabahood sameeyey, halka islaantan iyo ninkeedu aad u faraxsan yihiin maadaama gabadhoodii ay cadaalada heshay. wax yar kadib waxaa la helay kiiskii gabadhii kale Sneaker, meydkeediina waxaa laga soo saaray biyaha. labadaba waxaa dilay Timo. saaxiibkii Bir waxa uu soo qaadanayaa gaarigiisii waxa uuna imaanayaa halkan. waa uu isaga tegay magaaladii gebi ahaanba. waxa uuna ku faraxsan yahay inuu culayskii 23 sano ka hor saarnaa uu ka degay maadaama la ogaaday dilaayga rasmiga ahaa. waa uuna isaga tegay magaaladii. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. fadlan qaybta hoose commentiga noogu reeb fikirkaaga. waa ku mahadsantihiin mar kale daawashada muuqaalka.